السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rajeynayaa inaad caafimaad qabtaan, inaad barwaaqo iyo baraaro iyo bashbash aad ku sugan tihiin biidin illah meel kastoo aad joogtaan. run ahaantii waan u xiisay channelkayga, waan u xiisay dadkii aad ku wanaagsanaa oo ku xirnaa. adeen uga mahadcelinayaa ilaa iyo hadda waqtigan la joogo inay ku xiran yihiin channelkan, maadaama aan waxba la soo gelin waqtiyadii ugu dambeysay oo dhan 2 bilood iyo asaabiic aan waxba soo gelin oo uu iska marnaayo shaqo aan laga qaban. social media waan ka hadlay muuqaal yar oo aad u gaaban ayuu ahaa muuqaalkii hore 2 daqiiqo iyo ma aqaan ka yar inuu ahaa oo aan leeyahay social media waxaan go'aansaday inaan break ka qaato. insha Allah break yarna ma noqon doono, break aad u dheer ayuu noqon doonaa sababtoo ah qofka bini aadamka ilaahay wuxuu siiyay maskaxdaasna waxaa ilaahay u siiyay inuu noloshiisa ku hago, inuu wax danta ugu jidhana uu maaragtay wadadeeda qaado, wixii aan dan ugu jirana uu ka weecdo. maskaxda ilaahay saas ayuu noo siiyay. wax kaste waa inaad shaandhaysaa sababtoo ah maskaxdii baa ilaahay ku siiyay. waad shaandhaynaysaa, waad calajinaysaa wax kasta intaada laqin. wixii faa'iido waad qaadanaysaa, wixii aan faa'iido ku lahayn waad ka tagaysaa. marka Facebook oo kaliya aan isticmaali jiray, social media markii la yiraahdo iyo WhatsApp ayaan isticmaali jiray. labadaas bas aan aqaanaa oo familia aan ku ahay oo aan sida loo isticmaalo aqaanaa. labadina markii aan isbarbar dhigay faa'iidadii iyo khasaaradii iyo xaaladii markaasayto aan ku sugnaa iyo waxyaabihii i hor yaalay oo noloshayda oo u baahnaa in shaqada laga qabto, shaqada dhabta in laga qabto waxay u baahnaa. wixii oo dhan markaan evaluation ku sameeyay waxaa run ahaantii ii cadaatay oo aan miisaan ka saaray in faa'iidada iyo khasaaradu ay culays badan tahay. marka ma rabo inaan culayskaasna dhabarka aan saarto, ma rabo burden iyo wax aan qaadi karin culayskooda. waxaa ii fududaatay marka inaan iska tuuro. ilaahay ayaa mahad iskale, maaragtay waa awood ilaahay qofka siiyo oo kaliya inuu wixii dan aysan ugu jirin inuu ka tago. qof kasta ma sameyn karo. Soomaalidu maxay ku mahmadaa horta alxamdulillah ilaahay mahad iskale. Soomaali waan baranayay, wax badan ayaa hadda Soomaaligi akhrisanayay sanadkaana. waxyaabo badan baa ii qorshaysan oo aan rabo inaan ku horumariyo luqadda Soomaaliga si aan luqadeedu u noqoto luqad faseex ah. waa dhaxalka awowayaasheen, waa sharafteeni, waa luqadda annagana ay ilmahanagu naga dhaxlayaan. waa luqad u baahan in hime la siiyo, waa luqad u baahan in qiimaha ay leedahay oo dhabta ah la siiyo. qofka waxaan la yiraahdaa shiiq ayaan dhageysanayay Soomaaliya, ilaa khayra siiyo shiiq. markaan wax duubi rabaa wallahi ciyaalka guriga imaadaan oo khayra bilaabataa, laakiin waa soo gabagabeynaya. shiiq almisi yaxya wuxuu yiri luqadda ayuu yiri qofka bini aadamka marka ay luqadiisa ka dhunto diintuna way ka dhuntaa. luqadda Soomaaliga iyo qofka diintiisuna way isku xiran tahay. qofka intuu luqadiisa yaqaano uu ka akhlaaq wanaagsan yahay. marka waa muhiim luqadda in la barto. qof kasto ay luqaddu barayso. anigu ilaahay waxaan ugu shukrinayaa maanta kalsoonidan aan ku hadlay maan haysan sanad ka hor. kalsoonidaad xitaa way dhismaysaa marka aad luqadda si fiican uga hadlay taqaanid. social media xaggaas ayaan uga harayaa. waxaan rabay inaan insha Allah soo diyaariyo mowduucyo waxbarashada ku saabsan iyo gabdhaha dumarka ah oo guriga jooga si wax u baran karaan. gabdhaha hooyooyinka ah oo waaridkaasi wax u baran karaan. sababtoo ah hooyadu waa madrasadana ilmihii ayay soo saaraysaa inay wax barato oo ayada investment isku samayso. maalgashi ay nafteeda ku samaysana waa wax muqadas oo aan laga maarmin weeye. marka mahmah ayaa jiray aan aad ula dhacay markii aan macnaheedana arkay. aad baan ula dhacay. waxay ka hadlaysaa run ahaantii xaaladda waaqica oo aan ku noolnahay waqtigan hadda la joogo. maamaas waxay leedahay fadhi iyo food iyo cibaad la isku waa. fadhi iyo food iyo cibaad la isku waa. yicibtu waa nut waa it's a form of nut. marka nutku waa yicibtu way ka qaalisan tahay lowska iyo waxyaabahan kaleeto iyo way aad bay uga qaalisan tahay. marka fadhigi iyo foodkii cibaad la isku waa. haddaad maanta dhan fadhidid wax substantial ah, wax faa'iido leh ma keenaysid. marka waa inaad wax barataa. haddii aad hooyo tahay xitaa waqtigaas la joogo waa inaad wax barataa. waa inaad fadhiga ka kacdaa. waa inaad xitaa 2 saacadood maalintii aad wax barataa. 2 saacadood oo kaliya haddaad wax baratid maalintii usbuucii meeqay noqonaysaa mataqaanaa? 14 saacadood ayay noqonaysaa. 2 isbuuc meeqay noqonaysaa? 28 saacadood ayay noqonaysaa. 2 isbuuc oo kaliya. marka ha yaraysan haddii aad tahay qof hooyo ah. wiilasha way naga waqti badan yihiin run ahaantii. wiilasha
aad bay waqti badan haystaan ilmo ma korinayaan maaragtay gabadh uur ayay leedahay ilmo ayay nuujinaysaa cunto ayay karinaysaa aad baan waxaan iskaga dhaadhicnaa mida kale annagoo weli mas-uuliyad ayna saaran tahay haddana waqtiyada yaryar oo naga dhumaya ama social media kaaga dhumaan ama maaragtay ama iska fariiso kursigo iska sug inta qadada laga gaarayo saad qada u karisid oo kale ha kaaga dhunto ama ha kaaga dhunto un maaragtay wax aan macno weyn soo siyaadinayn sidii inaad maanta dhan aroos aan lagaaga yeerin oo kale aad iska istaagtid in fact anigu ceeb baan arkaaba meel aan lagaaga yeerin inaad aadid dhaqanka Soomaalida saas u ahaan jiray haddana ma aqaan wax isbedelay marka waxbarashadu aad ay muhiim u tahay hadii ilaahay idmo biidnillaahi tacaala schedule aan uga hadlayo hooyadu sida ay wax u baran karto ayaan soo diyaarin doonaa ilaahay waxaan ka baryayaa inuu nabad aan ku wada kulano muuqaalka xiga guriga waa la imaaday buuqa hadda bilaabanayo ma sii wadayo muuqaalkan assalaamu calaykum waraxmatullaah